ugu horeyn Yusuf soo dhawow ku soo dhawow masraxa nolosha su'aashaad ugu horeeyay in ku weydiinayo dadkoo dhan iyo Bayzania ku yaqaanaan bal magacaago saddexan taageerayaashaada xasuusi horta aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ani magacayga oo runta oo saddexan waxaa waaye Yuusuf Cabdirasaaq Warsame Yusuf Cabdirasaaq Warsame iyo Bayzania ku magac dheer ما شاء الله يوسف أم يو بيزاني أنا أهانتي إذا هو توحن جعلنا يو بيزاني كوعو يوسف أتاك ده قف كلام دريما يا لكن يو مركان لا هاي يو بيزاني دريما يا يو بيزاني فنان با هسه سمت بوجع عليه صح هسه هذا مدة وجع شهر والله أنا هسه وحن وجع لاي هست برشة yartan sayidin jeclaaday alla dunida uga seeganaaday hadday dhib igu samaysay hadday dhib igu heestaasna waxaan u jeclaa wax kale maaha waa qiso aan igu dhacday heestaas laga sameeyey that's why heesayga heesta ugu jeclaa ay u tahay aada weyn aniguba heesahaaga heestaas iyo hees kaleetaan ugu jeclahay adigu Soomaaliya marka la yiraahdo magaaladaadu waa xagee aniga Muqdisho aan ku dhashtay oon ku soo barbaaray intaan kula soo ekaaday soo magaalo kalmani aada weyn marka reer Muqdisho fanaaniinta ku tashanayaan aada weyn waayahay intaadan fanka soo gelin Yusuf ama Yu Bayzani fanaan aad u jeclaan jirtay oo dhageysan jirtay oo heesihiisa ilaa hadda aad jeceshahay ma jiraan wallaahi aad bay u fara badan yihiin fanaaniintii hore hadii la dhaho dhammaantood ma kala dhacaan laakiin si qaas waxaan u dhageysan jiray xasan samatar oo kale maxamed suleymaan tubaac sidoo kale hanuuniye weliba special heest waxaan ka jeclahay warabaha ku cunaya wehelku manoqoye qofka laba waji lahaa hala dhigani wacaado jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yool heestaas aad ugu jeclahay hanuuniye weli waan soo casriyey heestaas oo dib aan u soo qaaday Yu Bayzani marka aan ka soo tagno su'aalaha fanka ku saabsan tan noloshaada gaarka ah oo nimaano dadku waa kala nooc qofba wuxuu jecel yahay markuu rabo inuu noloshiisa naftiisa uu jawi la qaato meel gooni oo jecel yahay tusaale aniga oo kale geedaha iyo duurka iyo kayntaan jecel adigu jawiga jecesha والله أنا waxaan jeclahay xilliyada galbihii oo kale jawiga markuu aad u macaan yahay ama maqribadii oo kale inaan soo qoysto labisto oo moolalka aan tago movie iska soo daawado haddii mool markaas aan aadi karin inaan gurigeyga fadhiga inta soo seexdo inaan filmaan kala nooc iska daawado saasaan jeclahay inaan waqti ku qaato waayahay midabada adigu kuwa jecesha والله sida hadda arkaysidba macakabaha macnaha way cad yihiin ma jeedin aniga labada kalar aan aad ku jeclaa waa black and white dadkana way og yihiin hees kasta aan duubayo ama hees kasta aan soo qaadayo dharka aan wato black ama white ma laga waayo weliba dadku way weydiiyaan xataa inta badan waxay dhaaniyo black iyo white maxaa ku jeceshahay marka dooqaygu waa aad aan u jeclaa black and white aada weyn waxa ay xasuusisay style-kaaga markaad hees soo qaadayso fanaaniinta waxaad ku jirtaa style-ka ka diyaarsan ama aad uga taxadar waxay dadka la hor imaanayaan ma dad baa kaa caawiyo oo ku xula mise adiga uun dooqaaga iyo suuqa dhex yabaasha wallaahi may dad ma iga caawiyo inta badan dharka aniga diyaarsado oo dooqayga ah waayahay xulashada dumarkan u imaanaynaa iyo dooqaaga bal aan garabta madow iyo caddaan gabadha noocee jeceshahay inay noqoto aniga caddaan ma jecli madow madowgana saa'idkana ma jecli midabka waxaan jeclahay chocolate-ka waayahay midabkaasaan jeclahay والله درنا مجعلي قف أنا درس في رجلي قامنينا مجعلي وحنجعلها هاي حد أنا عمل قبو مسكولون قبو إني قبو أحد هاي كل أنت جينا عقل مسميدا أضو كعقل قبر بورنا مجعلي هذا أو كوسة ولا حد قبر بورنا مجعلي يجي لا أنا وحن صرت قاعد كرارة ما فهمت عقلي مسي dhexdhexaad dadka iska normal ka oo dadka ku dhex jiro on too much ka ma jecli
waayahay dalxiis inaad aado iyo inaad guriga joogto ama magaaladaada joogto tee jeceshaha I love dalxiiska inaad dalxiis dalxiisna aad u jeclahay meelo aad jeceshahay inaad aadid oo aad qorsheynaysid maa jira wallaahi hadda waxaan aad u xiiseynahay waayadan oon rabaa haddana ciidda inaan tago insha allah hadduu ilaahay idmo turki oon in badan aan ku haminaya inaan meeshaas dalxiis u tago hadda ii suurta gashay oon rabaa meeshaas insha allah dubai sidoo kale maxaad ka baqdayo wax oo gooniya ood ka cabsataa ma jiraa wallaahi wax gooni ah oon ka cabsado in laga naxiyo ma jecli wax oo yacni dadka hadda soomaalideen waa iska taqaanaaye sabreysaa lagu dhahaano waxyaabaha ama naxdin ha ahaato ama farxad ha ahaato in macnaha wax aan ka naxo oo la ii sheego ma jecli iyo beezaani dadku waa kala laba dadna waxay jecel yihiin in xiriirkooda ay soo bandhigaan cidda ay xiriirka la leeyihiin dadna waxay jecel yihiin inay qarsadaan oo ilaa qofkaas ay ka aqal galaan bannaanka ma soo dhigaan adigu kee jeceshaha ani wallaahi gabadha haddaan shukaansanayo iyo haddaan qababa aan isqabno labada marba ma jecli ani qofkayga inaan soo bandhigo ama social media ama dadka aan la wadaago ma jecli nolosha noocaasna aada ugu soo horjeedaa waxaa fiican qofka noloshiisa inay asaga bareefad u ahaato wixiisa kale oo social media asaga oo isticmaalaya gooni u tahay social mediasa laakiin inay mustaqbalkiisa iyo noloshiisa iyo xaaskiisa gooni bareefad ay u ahaato aniga nolosha noocaas aan jeclayn insha allah cunooyinkaaga maxaad ugu jeceshahay yacni cunadee baad cunada wallaahi waxaan jeclahay cambuuladoo kale laakiin special waxaan si gooni aad u jeclahay muufada wow haye muufo dadka ay casumi doono oon lilisi dardaarmaaye muufo weli muufada tan yar maaya tan waaweyn haa aan jeclahay iyo hilib ari iyo maraq cad intaas haddaa igu casunto waxaa weliga oo ku xusaa haddaba dadka taageera waa idiin sii sheega haddaba martida u noqon sii ogtihiin iyo beezaani dhanka iyo fanka usoo noqonaynaa waxaan aragnay inaad macnaha gabdha heesa la soo qaado gabadheed maanta ugu jeceshahay inaad hees la qaado oo codkeeda iyo inaad isla keenaysaan aad aada ugu kalsoon tahay wallaahi gabdho badan oo hees la soo qaado way jiraan kuwo badan oo aan ku haminayo inaan hees la qaadana way jiraan inkastoo ay kala dhicin gabdhaheena soomaaliyeed dhammaan fanaaniinta gabdhaha soomaaliyeed aad baan u salaamayaa kulligoodna waa wada jeclahay inaan hees la qaado ani wallaahi horaan waxaan jeclaa inaan hees la qaado walaashay inkastoo fanka ay ka baxday oon aad u salaamayo walaashay qaaliladan waxaa kaloo iigu soo xigta oon jeclaa inaan hees la qaado oo intana aan ka salaamayaa walaashay xamdi bilan oo joogta magaalada muqdisho xamdina aad baan u jeclahay inkastoo hees koobi hore aan isla soo qaadnay mar kale waan rajeynaya inaan hees cusub isla soo qaadno insha allah hadduu ilaahay idmo meeshaan waan ka salaamaya waxaan leeyahay ciid wanaagsan aada weyn wax jacayl ka baxsan heesa ma ka qaado wax jacayl ka baxsan wallaahi aniga heese jacayl keliya xataa ma qaadin heese daadis xataa waan qaaday hadda ciidda xataa hees daadisoo waxaa soo socoto lagu karbaashaayo gabdhaheena gabdhaheena dhan maaha adiga gabdhaheena waxaa ku jirto hal iyo labo oo macnaha xagga jacaylka aad ugu liidato taasoo kale hees usoo qaado oo aad ugu karbaashayo laakiin waxaan u badanaya xagga jacaylka iyo beezaani dhowaanahanba waxaa soo badanayay fanaaniinta shaacinaya inay fanka ka baxeen kuwaas sideed u aragtaa horta maasha allah waa wax aad u wanaagsan horta fankan wax fiican maaha in oo laga toobad keenana way fiican tahay insha allah ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inuu aniga iyo inta la midkaba inuu ilaahay kasoo hanuuniyo markaan kasoo noqdo su-aasheeda usoo noqdo aniga horta khaasatan markaan fanka soo galayay qofna maan la tashan intaan social media soo fadhiistana maana dhihin fankaas kusoo biiraya marka ayadoo taas jirto waxaa ku wanaagsan markaan ka baxayana inaan aniga iyo ilaahay shib iska dhaho oon afkayga iska qabsado oo camalkayga kale iska raacdo ma fahamti saasay ku wanaagsan tahay laakiin ani ma ku raacsani inaan social media inta soo fadhiisto
aan dhaho aniga fanka waan ka baxay ogaada la socda heesayga lama dhegeysan karo balaa balaa aniga waxyaabahaas waan kasoo horjeedaa. waayahay hal iyo labo heestaada ugu dambeysay haddaad ma xasuusiso heesahaaga heestii ugu dambeysay soo saartay. walaahi heestii ugu dambeysay aan soo saaray waxay ahayd waa hees hadda aan ku qaadi rabo ayaana la dhahaa. waxaa sameeyey abwaankeyga inta ka salaamayo ismaaciil afburqade laxankan waxaa iskale sidoo kale fanaankeyga aan aad u salaamayo xariir axmed muusigan waxaa saaray muftaax cadceed oo asna inta ka salaamayo codkana waa adiga tahayna saba kunkaan waxa dumarku nool kaaskiyo garashada haboon hormood baa tahay kartida kaaskiyo ala garashada haboon hormood baa tahay kartida tahayna saba kunkaan waxa dumarku nool kaaskiyo garashada haboon hormood baa tahay kartida kaaskiyo ala garashada haboon hormood baa tahay kartida kaldeeqa ruuxu yahay goobta intaad noloshaydii kabtay hankan kugu koobay keli kasbate maankiyo xiiskii hankan kugu koobay keli kasbate maankiyo xiiskii kaldeeqa ruuxu yahay goobta intaad noloshaydii kabtay hankan kugu koobay keli kasbate maankiyo xiiskii hankan kugu koobay keli kasbate maankiyo xiiskii gaari sayartii lagu korshay ayaan qurux kaamila qalbiga kaydiya dareenka kalsooni adaa ku beeray kashayda alla kashayda una kashayda adaa ku qoran kashayda alla kashayda macan kashayda adaa ku qoran gaari sayartii lagu korshay ayaan qurux kaamila qalbiga kaydiya dareenka kalsooni adaa ku beeray kashayda alla kashayda una kashayda adaa ku qoran kashayda alla kashayda macan kashayda adaa ku qoran baa tahayna saba adaa kurba tiray qalbiga kelmado xigmad laha taqaan koobkii sharaftaad siidaa kelmado alla xigmad laha taqaan koobkii sharaftaad siidaa baa tahayna saba adaa kurba tiray qalbiga kelmado xigmad laha taqaan koobkii sharaftaad siidaa kelmado alla xigmad laha taqaan koobkii sharaftaad siidaa
iyo hadal samaan kalamkaaga ii deeqay hal iyo laab ana ku jecel kalamkaaga ii deeqay hal iyo laab ana ku jecel kalwacan ayaan dheemane karaamiyo hadal samaan kalamkaaga ii deeqay hal iyo laab ana ku jecel kalamkaaga ii deeqay hal iyo laab ana ku jecel gaari sayartii lagu korshay ayaan qurux kaamila qalbiga kaydiya dareenka kalsooni adaa ku beeray kashayda alla kashayda una kashayda adaa ku qoran kashayda alla kashayda macan kashayda adaa ku qoran gaari sayartii lagu korshay ayaan qurux kaamila qalbiga kaydiya dareenka kalsooni adaa ku beeray kashayda alla kashayda una kashayda adaa ku qoran kashayda alla kashayda macan kashayda adaa ku qoran gabdhaha gaarisana waxaan dhihi karaa kulleyba hees badan looma soo qaadin laakiin heestan way ku filan tahay wayna ka badan tahay hal iyo laba iyo beesani maxaa kusoo gabagabeynaysaa maadaama barnaamijka ciidda ku jirno soo inaan familkeyga asxaabteeda salaamta ugu horeyn waxaan meeshaan ka salaamayaa labadeeda waalid aan aad ku jeclahay hooyaday macaan iyo aabbahay iyo dhammaan walaalahay anigoo inta kusoo koobi karin all my family waxaan leeyahay ciid wanaagsan kula caam wa antum bikheer I love you so much markaan familkeyga kasoo tagana dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo salaamayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan adigoo samiirana waan ku salaamayaa ciid wanaagsan inta maqalkayga muuqayga taqaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikheer aada u weyn anna waan ku salaamayaa waadna mahadsan tahay familkaagana waan salaamayaa taageerayaashaada waan aniga ugu horeeyana waan salaamayaa marka waad mahadsan tahay